nabigeenu wuxuu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi thalathun la yadkhuluna aljanna nabi sallallahu alayhi wasallam saddex jannada ma galaan saddexda way almannan wad-dayyuth wal-aaq nabi sallallahu alayhi wasallam ninka sadaqadu la baxo dadka ku galladaysa oo sheega kaasi jannada ma galo nabi sallallahu alayhi wasallam ka labaadeen jannada gelin waa caaqa waalidkii caaqa ku ah midka saddexaadna waa dayuuthka nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam waa ninka reerkiisa iyo ehelkiisa xumaanta raaliga uga adiga laftaada ku galaafanaysa macnaheedu ma aha ayada khaldantay adiga ku dhowranaya ee sida ku fiirsanaya laftaada janno ku waay doono oo cadaab ku gali doono hayla ilaahi mas'uuliyad buu ku saaray subhanahu wa ta'ala mas'uuliyadii hadaadan ka bixi karaynin waa inaad faraha ka qaad oo midaad mas'uuliyadeeda qaadi karta raadiso nin baa nabiga u yimi salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu yiri rasuul allah inna imra'ati la taruddu yada lamisin buu haweenaydaydu xaaskaygu nin gacan u soo taagay gacantiisa iskama bicilisaba yaacba ma dhahdaba macnaheedu waxa weeyaan waa hebed ma taqaanaa xoolaha waxa jira neef walba iska nuugo neefka u yimaadaba aan balahaynba maartay waxba aan diidinba yaani xaaskaygu nin gacan u soo taagay iskama bicilisaba xadiiska Abu Daawud ku yaala markaas nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam talliqha furbu nabigu sallallahu alayhi wasallam naag aan gacan ba iska celinayna ku noqon mayso iska fur markaas uu yiri rasuul allah waxaan ka cabsanayaa inay naftu iga raacdo aad baan u jeclahayo haddaan furo inaan ka maarmiyaan ka cabsano naftaydu raacdo markaas uu nabigu sallallahu alayhi wasallam iska qab marka kala lagu la taliyo ma jireen iska haysa marka macnaheedu taladii hore nabigu siiyay waxay ahayd nabigu wuxuu ku yiri salawaatu rabbi wasallam ma dhihin yaani taabashada la taabanayo raggu taabanayo waa dambi iyadoo ay la timi adigana dhankaaga ka intifaacso lama dhihin abadan ee waxa la yiri adiga ilaahay xilka ku saaray ama toosi ama hadii kale faraha ka qaad